بسم الله الرحمن الرحيم كورنيل كاكا قوسي ciidamada ee caar la yiraahdo magaciisa naaniis sadadi waxaan ka aaminsanahay ninkaasi waa nin mujaahid ah soo halgabay ciidanka qaranka mid ahaa waxaanay arintiisu u taala xukuumadana waxa loo baahan yahay inuu sida ugu wanaagsan oo la xiliidho soo la celiso hadii la guuro yahay isagana uma fiicna mucaaradnimadu waxa uu fiican dadkiisa dalkiisa la dhaqmo cabashiisana xukuumaddu u sheegto iyo cidii wax ka qaban karta korneel caare waxaan ka aaminsanay inuu yahay nin wanaagsan oo qarankana u hoggaansan oo cadho halka la tagtay qofku cadhada uu ka soo noqdaa maanta lama taagna marxalad dagaal maanta muuqataana ma jirto qofku uu cadhooda waana soo noqdaa hawshiisa qaranka horta u taala waxay ka yeelayaan laakiin ninkaasi nin cadho ku baxay ayuunbuu ahaa oo wax arkay garanaysaa yaanu nin wanaagsan baan u aqaanaa una arkaa korneel caaraan waxaan ka aaminsanahay nin muwaadina nin ciidanka qaranka ka mid ah kana soo mid ahaan jiray iminkana sababo jira dartood u cadhooday kowdhe markii la ogaaday in arrintiisu caare halka wax marinayo dawladdu way sahashatay kamayna hadlin muhiimadna cidima siin janana cidi umaba aragde ma garanaysaa marka anigu arrinta caare khaladkeeda oo dhan dawladdan saaraya waxaan xal u arkaa horta maanta dee arrintu way ballaaran tahay maanta arrintu way ballaaran tahay dawladda way ka ballaaran tahay somalilan oo dhan bay u taallaa xalkuna wuxuu ku jiraa in si wanaagsan oo karaamo leh oo sharaf leh caare loola hadlo loola xidhiidho maanta dadku dagaal uma baahna qalaalaase uma baahna dalku uma baahna dadkuna uma baahna dadku way ka soo daaleen hawlo dagaal iyo jabhadayn marka wasiirka gaashaandhigga madaxweynaha cuqaasha dhalinyarada mid kasta anigu waxaan oran lahaa arrinta caare muhiimadda ha la siiyo laakiin anigu caare khalad saari maayo الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد aniga magacayga waxa weeye Khadar Jilaal waxaan nin muwaadina reer Soomaaliland magaalada Hargeysa jooga kuna dhashay bariga magaalada waxaan aad iyo aad uga aaminsanay waxa weeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland arrinka xalliyo maanta jabhad ma baanin wala jabhad bari ka timaadana u baahan mid galbeed ka timaadana u baanin maanta waxa u baahanay nabadgelyo iyo waddanku wuxuu ku hormaray isku tanaasul isku qorshayn isku imaatin marka waxaan leenahay madaxweyne arrinka odayaal u dhaqdhaqaaji bahashan aad ku dhagantayna siida madaxweyne bahashan siida oo inaga dhaqaaji haddii kala jawaad way sii badanay haddaan lacagta la furin madaxweyne aad iyo aad baan ku salaamayna lacagaa siida jawaadana la soo xareeyo odayaasha la diro dhaqdhaqaaqa la sameeyo wasiiradii hore qaar la soo celiyo oo wax dhaqdhaqaajiya yararkani waa yaagriyo badan ma laha oo wax ku xalliyaan waxaan leeyahay madaxweyne jabhadu way sii badanayaan haddaan lacagtana la sii dayn odayaashana aan la dhaqdhaqaajin